xagee ayay marayaan wada hadaladii u dhaxeeyay Hargeysa iyo Muqdisho wada hadaladii Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo wajiyo badan yeeshay si fiican inoogu qabsoomay waxa naga go'an hadaan nahay dawladda federaalka inaanu dardar gelino inaanu dib uga shaqeyno ku talagal baa jiray bishii March in madaxweynaha Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Musabbixi isu yimaadaan dhiig cusub la geliyo jadwal cusub loo sameeyo qorshe uu ka dhasho way naga go'an tahay wada hadaladaasi mar walba xagga iyaga inay qabsoomaan in aan walaalaheena Somaliland dhageysano tabashooyinkooda maqalno miiska la isugu yimaado Soomaali ma kala maarmi karto ma kala tagi karto waxaan nahay dad walaalo ah wixii aan kala tabanayna aan miiska isugu sheegno mar walba dhageheenu waa u furan yihiin walaalaheena Somaliland wada hadaladaasna dardar cusub baanu gelin doonaa imakadan bana waa noo furan tahay mar walba xiriirku waxaanu ka shaqeynaynaa sida ugu dhaqsiyan badan ee suurtagal ah in wada hadaladii ay u bilaabmaan guulo midho dhal ah oo la taaban karo iyo jadwal ay maraan wada hadaladu iyo road mapna insha Allah uu abuurmi doono hadii Ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii suurtagal ma tahay wada hadaladaas inay Soomaalidu kaliya wada hadasho dalka gudihiisa lagu qabto meesha doontaba ahaatee oo Soomaalidu kaliya ay wada hadasho sidii dhaqanka noo ahaan jirtay ama xafiis la fariista ama geed hoostiis dadka walaalaha ay wada hadlaan taasi waa hamiga ugu weyn ee dawladda federaalku ay ku hamiyeyso qabnana wax naga maanacaya ma jirto sidii Abiy Ahmed oo asmara uga degay mar alla markii ay suurtagal tahay walaalaheena Somaliland iyo Hargeysa iyo madaxweyne Musabbixi ay u furan yihiin in madaxweyne Farmaajo uu Hargeysa ka dego walaalaha Soomaaliyeed ee reer Hargeysa la fadhiisto madaxweyne Farmaajo oo la sheekaysto Musabbixi la sheekaysto salaadiinta caanka ah reer Hargeysa iyo madax dhaqameedka iyo aqoon-yahanka iyo culamaa u diinka waxa kale oo albaabku mar walba u furan yahay madaxweyne Musabbixi inuu Muqdisho yimaado markuu doonana ka soo dego annaga dhankayaga waa diyaar haddii berri ka maalin ay suurtoodo in walaalaheena reer Hargeysa madaxweyne Farmaajo ay marti geliyaan ogolaadaanna inuu yimaado diyaar baanu u nahay inaanu Hargeysa ka degno Ilaahay idamkiisa